السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أمد الصوماليات ملك استو جوجتان ولا يجعل كحرم بيتكيga aad iyo aad baan idin salaamaya oo miskiinkin walaalkii ahaa cabdiqani macalin yuusuf gaaciye ama master gaaciye kumaga dheer waxaan runtii aad iyo aad ula yaabaa dadkan la yidhaaho reer muduga iyo reer galgaduud ma xishoodaan dadaan xishoonin waaye war waxaan dagaal qabiil goor u dambeysay waxaas old fashion buu ahaa xilli horaa laga tegay reer hebel dagaalamaya iyo reer hebel waxaa walaalaya xilli horaa laga tegay ilaahay inta laga cabsado abdiweligaas iyo ninka la yidhaha abdikada guryadow dadka xabadda ka daaya war dadka masaakiinta qaxinaysa ka daaya war dadku waa is dhaleen waa walaala waa isseedi waa isu abti dadka xabadda ha laga daayo runtii aad iyo aad baan la yaabaa Soomaaliya gobolada kale oo dhan qabiil maanta uu ma jiro waa laga yaabaa inay jiraan xogaa dad siyaasadda isku yaraya laakiin qabiil reebel war ma xishoonaysiin caalam baa dawlad baa sheegaysa maamul gobolka baa sheegaysa dawlad baa iyo maxaa qabiil baa dagaalameysa war xisho mid kale waxaan rabaa inaan ka hadlo maamulka galmudug waa maamul Soomaaliyeed oo Soomaalinimadu ay daacad ka tahay waa maamul u baahan runtii cusub oo u baahan in la kaabo oo maamulkaas ay maartay la caawiyo waa maamul u baahan in la garab istaago runtii maamulka nasiib darro wuxuu la kulmay xabad iyo xilli yar dhibaato badan buu la kulmay laakiin waxaan rajeynaynaa inuu maartay soo kabsado maamulka galmudug laba caqabadood baa hortaagan caqabada koowaad oo ah nimankan la yidhaaho Soomaaliya oo dhoonta u galay dadka gowracay kaaralaha ku ridee oo caqabada koowaad ah caqabada labaad oo ugu sii weyn oo tahay isla tahay ka sii weyn too ah nimanka suufiyada waxaan aaminsanahay what's the difference suufi and nimanka shabaab maxay kala duwan yihiin same way maanta mid wala shacabka Soomaaliyeed buu qixinaya mid dawlad rabo kuma jiro suufi dawlad ma rabo shacab dawlad ma rabto because horta hadafka ka sameeyeen baa jirtaba dawlad aan waxaa kale oo jirta nimanka la yidhaaho suufiyada waa niman ka socda Iran madhab waxay faafinayaan shiica oo kala ah oo niman ka soo horjeeda ku dhaqankii iyo diintii iyo sunnadii Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa shacabka Soomaaliyeed kula talin lahaa oo ugu baaqi lahaa war caqiidan iyo la fasaahadinin idinka dhexdeena daas tagaashan wada heshiin kartaan laakiin caqiidan oo dhaawac loo geysto dhibaato ka xoog badan ay soo fosaari karta ma laha nimanka suufiyada si wada jir ah loola dagaalamo maamul insha Allah maamulka galmudug baana ka reyn doona meel baana la saari doona madaxweynaha galmudug runtii waa nin wadan yahay Cabdikariim Guleed aad iyo aad baan ninkaas maxay ahayd u taageersanahay waa muwaadin Soomaaliyeed oo in badan dawladihii Soomaaliya ka soo shaqeeyay nin qabyaalad iyo wax daran la soo kulmayna ma aha runtii meel dhib badan buu ka bilaabay inay barwaaqo ku dhamaatay ayaan rajeynaynaa marka reer mudug iyo reer galguduud dagaal waa laga tagay xilli hore waxaasi waa old fashion gutiga waxaas ka xishooda dadka walaalaha isku dileysaan daaya warreey hebel waa laga xishooda ka xishooda war nin weyn baa intuu suud soo xidho tay soo xidho warreey hebel baa la dagaalamaya warreey warin nasiib darro waaye marka aad iyo aad baan islaamiya baaqa nabadeed baa soo jeedinaya ummadda Soomaaliyeed waxaana kale uga digay nimanka suufiyada waxa kale ummadda Soomaaliyeed uga digay masiibo soo baxday kooxda baadida aha uu wataninka la Cali Raage ninka sinada ku faanaya ninka heesta ku faanaya ninka fisqiga ku faanaya ninka le naga ajnabi intuu xeebaha kula tunta dhahaya waa ilbaxnimo in naga ajnabi xeeb kula tunta oo kula raaxaysto dad baa diin ahaan u aaminsan oo dhahay waa sheekh Cali Raage xagu sheekh ku noqdo waa shaydaan ama nimanka la yiraahdo al-ittixaad ama la yiraahdo wahabiyada nimanka la yiraahdo suufiyada wax different oo ka duwan malaha waa dad sunniina waa dad walaalaha wax yar baa la isku hayaa oo maxay ahaydey oo ahkaan ah marka waxa way ka heshiin karaan laakiin nin waxa soo baxay bale sinadu waa xalaal waa ilbaxnimo diinta kamita waa barwaaqo war magaalimo subhanaka ya cadiim marka taana laga digtoonaado ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baan idin salaam dhamaantiin meel kasta oo joogtaan.